beesha Sacad Yoonis waxa hakraday oo hoosaas isku noqday calanka dul taagan waxa hoosaas isku noqday kii gaaleef dilay oo caara ka baxay waxa hoosaas isku noqday tuutaha ciidanka dirayska Soomaaliland sheegata waxa hoosaas isku noqday beesha ka soo jeeda ee magaca Garxajis ku abtirsata oo waxa weeye iskaashatada maxaysatada ah ee waxa weeye quutal daruuriga maalmaha ah la tacaalaysa ee ganacsatada isku sheegta oo maalin walba nabad ku hoosaasinaysa siyaasadda madhalayska ah ee waxa weeye beeshu ay habkacayso oo iyaduna ku noqotay malaawaal waxa hoosaas isku ah cumaamad waxa weeye iyo koofiyad baclayaasha malaawaalka iyo beenta ku jira marka beesha Sacad Yoonis misiyada farayaay waxaan leeyahay niman shantaada farood ka celin sharci kama celiyo sharcigu waa ka qaban waayay teknika ku soo weerartay sharcigu waa ka ku yiri darar weyne waa ka dumiyay sharciga aad sugaysaa waa ka ku yiri darar dogoblo waa ka dumiyay darar weyne waxa weeye daaqsin baan ka dhigay oo waa meel xiran ceelaf weyna teknika ku soo weeraraya marka horta beesha Sacad Yoonis iyada waxaan leeyahay kitaabkiina 11 jeer ayaa tijaabisay marka waxaan leeyahay waa halkii abtigay faarax dhuure lixalka ku joogtaan dagaal laabta ku ogaada naftiina difaaca dulmiha qaadanina dadkana ha dulmiina meel kasta oo aad joogtaan waxaan leeyahay habeen iyo maalin naftiina inaad badbaadisaan mas'uuliyad baa idinka saaran cid aa uga daba fadhiisanaysaan ma jirto cidii caawinimo idinku baahana iyada idinku imanaysa waxa sidoo kale hambalyo uga diraya gobolka Sanaag beelweynta Garxajis bari ee iyaguna fadhida dhalinyarada Ceergaabo ee habeen iyo maalin heegan waa rag iyo dumarba wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi qaarka sare soo dhaafto halkan markay timaado waxaan yiri toobada laga aqbalo because what the last minute goal waa halkii ugu dambeysay ay ku tageysay maanta tiiba la taagan yahay oo Garxajis taagan yahay kunuuniga naftu tii kunuuniga hadaynu maanta xoog iyo gacan iyo dhimasho intaba aynu dib uga la dhigano waxay la tahay qurumo bari hore khasmeenu ka qayb gali doonaa inaguna waxaan la hadlayaa geedkii hadlay wuxuu yiri geed yahow gudin yahay haddaan badhkay kugu jirin ima goysin waxaan la hadlayaa saraakiisha Garxajis ee maanta inankoodii iyo hooyadood xabadda ku dhifanaya ee kala hortegaya ayaan aad iyo aad ula yaabanahay miyaanay ubadkoodu kay dhalaan u nahay miyaanay u dhalayn mustaqbalka noloshooda ilmahoodu inuu qafas madow galayo oo ay iyagu uga tegayaan oo la oranayo berigiiba aabihii sida ahaa ama oowihii sida ahaa waxaan leeyahay nimanka ciidanka ah ee hoggaanka ah waliba ee Garxajis ee maanta buurtii tabca iyo daalo xabadda isla dul taagaya war maalin baad garan doontaan haddii ilaahay caqligiina idinka idin siin waayay war miyaa ku dayan weydeen kuwii idinla deganaa degaanka ee maalintii la yiri dagaal ku qaada badhan oo duula yiri duuli mayno annagu isdili mayno oo calankii Soomaaliyeed ee darajadu ku furay dibadda dhigay war kuwa miyaad ku dayan weydeen haddii idinka caqligiinu shaqayn waayay maanta waxay taagan tahay in laydinku yiraahdo halkii aad u soo dhimateen soo xoraysateen u dhaawacan tihiin dib u laaya oo aasa oo Hargeysa laydinka soo yiraahdo idinkoo Ceergaabo jooga taas ayaan daro ridiculous wax la qaadan karana ma aha waxaan leeyahay Garxajis waxaan leeyahay weligii Garxajis isma eegan dagaal ay galaanna bari iyo galbeed waa ku wada jireen maanta Sanaag dhiig joojin uma baahna dhaqaale $100 la isu saarano uma baahna Sanaag waxay u baahan tahay saanad iyo maal buuxa oo waxtara oo difaaca dalka ayay u baahan tahay waa in taa la galaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمد الشعب كرير سمعنا والسلامينا وحنا كنا صبرنا السلام
halkan waxaa caawa ku shiray qurbajoogta garxajis ee carriga ingiriiska oo isaga yimi meel walba. halkan waxaan caawa u soo fadhiisannay inaanu ka hadalno war-saxaafadeed odhanaya hagardaamada iyo dulmiga ka jira Somaliland siiba gobollada bari ee maamulka dalka ka jira Muuse Biixi uu ku hayo deegaanka Ceelafweyn, Ceerigaabo iyo Buuraha uu ciidamada ku rarayo. guddiga garxajis baan u dhiibaynaa oo ku wareejinaynaa insha allahu oo taageeri doona waxa weeyaan diidina doona dulmiga meesha ka jira. waxaan idiin dhiibayaa afhayeenka guddiga garxajis Maxamed Cabdilaahi. waa idin wada salaamayaa. arrimaha ka taagan maanta bariga Somaliland ee gobollada Sanaag waa arrin ka baxsan nidaamka dowladnimada. luqadda lagu isticmaalayo, ficilka lagu isticmaalayo intuba waxa ay ka soo horjeedaan nidaamka wax wada lahaanshaha iyo dowladnimada. sidaa daraaddeed haddii aanu nahay anigoo ku hadlaya afka golaha guddida garxajis ee UK shirkan caawa halkan isugu nimid waxaanu ku go'aansanay inaanaan qayb ka ahayn wax kasta oo ka soo horjeeda dowladnimada Somaliland. hadallada la isticmaalayo ee qayaxan ee la leeyahay caaraha la soo xiro ee la leeyahay reer hebel tignika ay haystaane ha keenaan waxyaalahaasoo dhan waxay ka baxsan yihiin nidaamka dowladnimada. waxaan kaloo halkan ka caddaynayaa haddii la doonayo habka dowladnimada in lagu dhaqmo waxa la yidhi caaraha la soo dhiibo yaa loo dhiibayaa caare haddii la waayo dowlad dhex oo ummadda u dhaxaysa oo dadka nidaamkii dowladnimadu lahaan jirtay iyo hanaankii dowladnimadu lahaan jirtay ku socoto ku dhaqmaysa yaa loo dhiibaya. teknikada la doonaya yaa loo dhiibaya. ma reer baa reer doonaya inuu teknikadiisa ama inamadiisa ka haysto. kuwii la soo dhiibay halkee la geeyey, kuwii wax lagu laayay halkee la geeyey, kuwa dalka gudihiisa jooga ee sharciga haysta maxaa looga hadli waayey ee caaro keligii ay diiraddu saaranta. waan idin salaamayaa. arrimahaasoo dhan waxay u baahan yihiin in laga jawaabo. loomana baahna in lagu wareegaaleysto waxaan soconaynin ilaa xaqiiqada la isugu yimaadana wax ka soconaya ma jiraan. waana mahadsantihi. anigoo ku hadlaya magaca guddida garxajis ee UK waxaa aad aan ula yaabay nidaamka dowladda Somaliland oo aan adduunyada laga aqoonsanayn oo de facto state ah reer ka kooban lacagteeda meel laga aqoonsan yahay aanay jirin reero iyagu is-ictiraafay ah qaarkood ay jabahada yihiin oo ay buuhoodle fadhiyaan calankii buluugga ah ee Soomaaliya saaran yahay qaarkood shalayto ay ka baxeen oo ay magaranaysaa gobollada bariga Sanaag Rawr Sangeli ay ka baxeen oo iskaga tageen oo jabadoodii iyo ciidamadoodii la baxeen qaarkood wabar iyo jabado hore ay jireen oo qaarkood ay beelaha dalka gudihiisa buuraleyda Muuse Boqor oo dhan ciidamo hubaysan oo jabhadaysan ay joogaan oo qaarkood ahaayeen kuwii dilay saraakiishii gadabiirsay oo kuwa subeer oo wara ay meel walba joogaan oo saaxil iyo qoy galbeed ba joogaan oo hubaysan yihiin. waxaa reerkan garxajis hubkooda iyo inimadooda daba dhigay baa magaranaysaa mucjisaa. waxaan malaynayaa inay aada u khaldan tahay in la isbarbar yariyo ciidan dowlad nabad doonaysa oo doonaysa inay soo afjarto magaranaysaa qaladaad iyadoo ay samaysay oo aabe u ahayd markii hore xalkeeda gacanta ku haysay sida caarahan ay daba socoto oo ay markii hore labadii madaxweyne ku xigeen ee maanta magaranaysaa
weliba dalka jooga ay arrinkiisa ku soo dareen heshiiskii hore Sacad Yuunus lagu daro ay diiday dawladdu inay ku darto waxa ay xalkaa intay diiday haddana ay u daba joogto waa wax mucjiso oo aan la garan meeshan dal la ictiraafsan yahay maaha waxa weeyaan beelaysu yimi beel walibana waxa weeyaan hubkeeda iyo ciidankeeda way haysataa dalkana haddii la wada yeelan waayo waa la kala yeelanayaa deegaan waliba wuxuu yeelanayaa dhulkiisa odayaasha dhaqanka ee la diray loo diray nabadda ee dhinaca kale laga hoos gelinayo ciidamada faraha badan ee lagu gurayo ku wareegsan nabad iyo colaad meel mooda galaan ama madax dhaqameedka ha looga baxo iyagu ha soo afjaraan wixii khilaafay dawladda iyo ka dhaxeeya iyo ciidanka hubaysan oo ha laga qaado ciidankan faraha badan ee lagu soo ururiyay gobolka Sanaag taasi waxay muujinaysaa colaadii 94 inaad soo celinayso oo ku saabsanayd markaad aragtaan inay garxajso qori haysta ama iska caabin karaa inaad istiraadaan ka soo qaad oo shalay dhacday waayo askarta meesha joogta waa kuwii 94 colaadu ay muujinayaan waa colaadii 94 sidaa daraaddeed annagu haddaanu garxajsnahay across the globe dawlad walba iyo dal walba iyo international community-ga meel walba waa geynaynaa genocide-ka dadka reer baadiyaha ee ciidanka qaranku uu buuraha dushiisa ugu koray ee xoolaha iyo dadka iyo maatada ay ku laayeen ee loo aaba yeelin hubkii cashuurtooda lagu soo iibiyey lagu laayay maatadii cashuurta laga qaaday meel walba waa gelinaynaa cid walba waa u sheegaynaa geed dheer iyo geed gaabanba adduunyada waa u gudbinaya dadka arrintaasi khusaysana waxaanu leenahay waxa idinla gudboo yeela waxaan anigu xaggan baa uga dirayaa dhammaan dadka ku nool Ceelaf Weyn waxaan leeyahay waa aragtaan weliba waxaan gaar u dirayaa beesha garxajisada Ceelaf Weyn taagan waxaanu idinla ayiidsanay qodobadii ka soo baxay shirkii boqol aanu boqolkiiba boqol ku daba taaganay in la isdifaaco aanu idinku ayiidsanay muusena fariin xaggan waxaan uga dirayaa muuse waxa leeyahay muusow meeshu waa meeshii ragguna waa raggii cirka jeex soo dumi waxaa runtii dee wada hadalka halkan ka baxay iyo go'aamadii ka soo baxay guddigu runtii way tilmaameen isagoo qodob ah baan in yar kor marayaa shirkan runtii waxaa aada loogaga hadlay badheerhka iyo badheedhaha dowladda ama dowlad ku sheegta Somaliland gaar ahaan madaxweynaha ninka ah sida uu ugu badheedhay uu u qaatay taariikhdiisii hore mid la mida oo horey uu u yidhi anigoo wax dili kara duco qaadan maayo waxaa loo fahmay khudbadiisii ugu dambeysay inay kelmado kale uu isticmaalay ee uu reerka dagaal u declare gareeyay baa loo fahmay oo shirkan go'aanka ka soo baxay wuxuu ahaa muuse dagaal buu iclaamiyay waxa la qaatay in la isdaafaco ayaa shirkan lagu qaatay oo la taageero dulmidiidka iyo in dulmiga la diido oo la isdaafaco baa la qaatay waxaa la go'aansaday in baaq loo diro beelaha Somaliland ee badheerhka u daawanaya in beel ciidankii Somaliland lagu weerarayo maatadoodii iyo xoolahoodii iyo dhulkoodii in ciidankii Somaliland beel lagu weerarayo in loo diro baaq la yiraahdo ciidanka dadka idinkaga jira sabab ay nagu weeraraan ma jirto dawladii meeshan kama jirto ee waxa weeyaan waa dulmigii 94kii baa la soo celiyay nagala noqda oo la hadla oo baaqa u dira ciidamadiina oo yaanay ka qayb qaadan weerarka dadka gaarka lagu hadiyo in baaqa loo diro beelaha Somaliland dhamaantood ayaa la qaatay
waxa la go'aansaday in ciidankana halkan baaq looga diro oo la yidhaahdo ciidanka Somaliland ee aan taageersanayn in reer gaara la xasuuqo sababtay ciidan u haayeenna aanay ahayn inay reer duulimaad ku yihiin in ay ka baxaan oo aanay ka qayb qaadan dulmiga iyo weerarka reer gaara lagu hayo ee la iclaamiyey inaanay ka qayb qaadanin sidii saraakiishii reer Sanaag ee diiday markii la yidhi weerara magaaladiina inay yidhaahdaan annagu shacab iyo magaalooyin weerarkeeda ka qayb qaadan mayna inay yidhaahdaan oo aanay ka qayb qaadanin oo ciidanka Somalilandna baaqaa loo diro la yidhaahdo weerarka iyaga sababa a uga qayb qaadataan ma jirto meel walba ciidan Somaliland diidani gobol walba wuu joogaa sabab loo weeraro la yidhaahdo caaraa ka baxay imisaa ciidanka Somaliland ka baxay oo jabhada ah imisaan weligoodba kusoo biirin oo Somaliland jooga in ciidanka qaranka la yidhaahdo caqliga lagu shaqaynayaa waa qabyaalad bareedha oo reer lagu weeraraye sabab aan ugu gashaan ma jirte ilaahayna haddaad taqaanaan ka jooga cidda u bareersan reerkan ee weeraraysa iyo reerkan haysarkaan go'aamadaas ayaa runtii ka mid ahaa waxa ka soo baxay oo difaaca ka mid ah in ashkato caalamiya iyo mudaharaadyo la abaabulo lagaga soo horjeedo xasuuqa ay qorsheeyeen madaxda Somaliland xukunta mudaharaadadaas iyo ashkatada caalamiga ahna way bilaabmaysaa tii hore ee 94kii ee la iska saamaxay ama aan cid lagu qaadinna maanta la isku qaadayaa maxkamada la isku soo saarayaa mar hadday raggii tii hore geystay maantana tii mid la mid doonayaan waxba la isula hadhi maayo shirkana waxa lagu go'aansaday in la isdaafaco intaas ayaan anigu ku soo gabagabeynayaa oo de qodobadu ay ahaayeen aad iyo aadna waa mahadsantiin waxaan ku daraynaa in Ceelaf Weyn laga soo xiray odayaashii sharafta lahaa ee ahaa kuwii xariga u noqon lahaa haddii dhibaato timaado daweyn lahaa in la soo xiray iyo xildhibaanaba waxaan u sheegaynaa maamulkan caadaystay inuu qofkii diida dulmiga xidho waxa la isugu iman doonaa halka la wada degay waa la kala ahaan doonaa dalka ayaanu leenay haddii aan laga soo noqon waxa ciidamadana fariintii hore loo diray waxaan u sheegaynaa 94kii godobtii aa gasheen baa laydinka saamaxay mid dambe aa gelina ayaanu leenahay beelaha kale aanu sheegaynaa ee Somaliland ka kooban harti hadday tahay Samaroon Arab Gabooye iyo beelaha la halmaala labada beelood ee qaarna la hubeynayo leeyahay ilmaabtiyadii laay qaarna ay soo hubeynayaanna xaqay tagi baanu leenahay garxaj waxaanu leenahay ay isu taago cadaaladda dulmi ha sameeyna laakiin cadaaladda isu taaga oo hal istifaaco wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh على سيدنا محمد waxaan fariin baan halkan uga dirayaa anigu taliska Somaliland ee hogaaminaya Musabbix Cabdi waxaan muuse farayaa adraawa gabaygii berigii asnatii tiriyay wuxuu hubka mudug ku tarax tagay hubsiino waa u baahnaa ciidanka u rartay Sanaag muuse hubsiino u baahnaa waan ku leeyahay waxaan ku sheegayaa ciidanka cabta ciidanka joogiyo haddii carro la taabto tawka weyne Hargeysa togdheer waa gubayaay xageed kuu soo qaban doontaa waxaan kuu sheegaya haddii dagaalka dooratay adigu annana waa kula qaadanay waxaanaad ogaataa 7 days inay ku iman doonto amisom dalka adiguna imaaraadka keen anaguna ay soo baro keenayna cidii marka caanka daatan Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kan masaakiinta ah isu hubeynayay oo dhan hubkooda u siinayay oo dhan ka abaabulayay jabhado iyadoo sidaas jirto haddana waxaan ahayn beeshii mar 2 3 4 5 6 ilaa 7 jeer qaadatay in ay badbaadiso oo ay halka gacmaha la isugu qaaday sheekh iyo shariif salaadiin cuqaal waxgarad shiikh intuu ay isugu tagtay mar kasta oo nabad la dhaliyo
oo lagu kala yimaado haddana dabkii halkiin buu ka bilowda marka waxaan u sheegaynaa shacbiga Soomaaliland inay fahmaan waxani inaanay ahayn arrin beeleed ee ay tahay arrin ku saabsan xukuumad ciil qabta oo rabta inay ummadan oo dhulkoodii degan in ay ka barakiciso way barakicisay dhulkoodii bay gubtay caruurihii bay ka laysay dumarkii bay laysay raggayagii iyo mudantayadii ayay qabriyada ku wada bureen intaa waanu dul qaadanayna laakiin waxaa jirta waqtigii dulqaadku wuu dhammaaday raggayagu meel kastoo joogaan qurba joog qaran joog waxaanu go'aan ku gaadhnay in aanu daafacno meel kasta aanu kaga noolaano Soomaaliland inaanu daafacno beeshayada la xasuuqayo waanan isku raacnay raggayagu hadalkii ay cadeeyeen saacadii hadda iga horeysay ayaanu annagoo dumarana raacsanahay taa waxaanu go'aan ku gaadhnay inaanu meel kasta oo aanu joogno aanu waxay raggayagu ay go'aansadaan annaguna aanu la garab istaagno ciddii ay caana kaga daadanayso waddankii ku baaba'aya ummadii ku barakacaysa in badan baanu dulqaadanay dulqaadkiina wuu dhammaaday hoggaanka dhan ee dalka jooga ee maanta dalka ka taliya ninkii wuxuu ahaa hoggaanka macnihiisu waxa weeyaan inuu ummadda uu hoggaanka u yahay isu ururiyo nabad iyo xasilin uu ku soo ururiyo laakiin waxa weeyaan inaad moodo inuu ciil qabo oo uu aargoosanayo halkuu ka aargoosanayo garan mayno 94 way dhammaatay waqtigan joogna waa 2019na haddii aad adkaan jirtay iyo haddii aanad adkaan jirinba rag waa isu joogay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu